dacdada maxaynu ka baran karnaa bal waxaad ka warantaa ninkii 6 sano kugu xukumay haduu bari toola noqdo ardaydaada noqdo hadaba ninka Sultaan ayaa dhacdadan ka waramaya hadaba nin la yara ayaa wuxuu ahaa mid daroogada ka ganacsada taariikhdiisu aad bay u madoobay درى تاريخ سبحان الله مظلم ألقي عليه القبض markii dambe waxa la soo qabtay isagoo daroogooyinkii wixii iibinaya xabsi baa la galiyay wadanka Sacuudiga ka dhacday markii ninkii xabsiga la galiyay maxkamadda la keenay markii maxkamadda la keenay xaakim ayaa joogay محكمة وكانت اللجنة مكونة من 3 من القضاة saddexdii xaakim ayaa waxay ku xukumeen ninkii dhalinyarada ahaa 6 sano iyo 3,000 oo jeedal markii uu xabsiga galay ninkii isagoo aad iyo aad u niyad jabsan ayuu nin kale oo xabsiga joogay ayuu la kulmay ninkii baa kula taliyay niyo haniya jabin hadaa doorsiga hore uga baxdo xabsiga quraanka dhamee ninkii uu la yaabay arkaan uu tukado uu yiri maxaan quraan dhameyn شيء قال تحفظ القرآن قال ليش قال احفظ القرآن قال يا اخوي انا ما اصلي احفظ القرآن laakiin nin badan markuu ku tashkiiliyay ninkii arrinka uu qaatay hadaba markuu taladii qaatay quraankii ayuu dhameeyay in muddo markuu dadaalay shakada markaynu soo koobno markuu wuxuu muddo xabsiga ku jira ninkii quraankii ayuu dhameeyay muddadiisina uu dhameystay wuxuuna ka baxay xabsigiisa oo quraankana xibtisan in ilaahayna xaq garasiyo noqday markii daba macallin ayuu noqday maadaama shahaado ka soo qaatay inta uu xabsiga ku jiray hadaba waxa cajiibka ah waxa weeyaan maalmaha kamid isagoo quraan u dhigayo xalqad ka dhigaya ama group wuxuu dhigaya quraan ayaa waxa soo fadhiistay ninkii xaakimka ah ee ku xukumay 6 sano كدت ان اقع مغمى علي احد القضاة الثلاثة الذين قد حكموا علي ها هو اليوم ياتي ليدرس علي طبعا القاضي ما اعرفه ninka xaakimka ma garanaya ninkan maadaama 6 sano ka hor ahayd ninkina ugu yaraan uu isbedelay markii wuxuu yiri xaakimkii uu soo fadhiistay ayaan aad iyo aad ilaahay ugu mahad celiyay markay iga tageenna 2 ragcadood ayaan ilaahay u tukaday anoo ilaahay ugu mahadinaya gurigeyga markaan tagayna muddo kadib haddana waxa yimid xaakim labaad oo kuwii xukumay kii labaad ayaa yimid isaguna doonay inuu quraanka iga barto وفي يوم من الايام والله لقد طرق علي الباب رجل يقول فلما فتحت الباب يقول البيت الشارع كان مظلم ما عرفت متى تبين وجهه يقول يوم دخلت هالبيت طالع واذا به احد القضاة الثلاثة الذين قد حكموا 2 من القضاة اللي حكموا عليه waxaan halka ka baran karnaa xadiiskii nabigu yiri quraanka qoomam ayaa lagu dallacaya oo ilaahay sharaf ku siinaya halku qaar kalena ku dulleynayo